جك بس. hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma oo ka jawaabaysa baahiyaha bini'aadanimo ee dalka xoojinaysana dadaalada xasilinta ayaa gargaar ugu talagalay dadka abaaraha iyo colaaduhu saameeyeen maanta u dirtay deegaanada dowlad goboleedka Puntland. gudoomiyaha hay-adda Sodma mudane Maxamuud Macali Cabdulle ayaa deeqdan raashinka ah oo loo qorsheeyay in la gaarsiiyo 3,000 oo qoys ku wareejiyay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Jaamac Jikaato oo laga soo doortay Puntland. gudoomiyaha warbaahinta la hadlay ayaa xusay in si loo yareeyo saameynta taban ee ka dhasha abaaraha iyo colaaduhu ay hay'adda adeegsan doonto bad bari cirba si gargaarka loo gaarsiiyo goobaha la xoreeyay iyo deegaanada colaaduhu saameeyeen. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inuu xildhibaan Cabdullaahi la joogo. waxaan joognaa baqaarka hay'adda maalinta masiibooyinka oo dabcan aan si shaqadayna ahaydba aan howlo ka wadno. howlahaasoo runtii hadda gargaar bini'aadanimo oo ku socdo dhulkii abaaraha iyo colaadaha ay ka taagnaayeen ee deegaanada Puntland, kuwaasoo runtii aan rabno insha allahu tacaala in ay dadka halkaas joogaahay ay ka faa'iidaystaan. waxaan halkan wadnaa oon raashinka aan dirayna uu dhan yahay ilaa iyo 3,000 oo qoys, kuwaasoo aan rabno insha allahu tacaala inay si degdeg ah ku gaaraan maadaama xaalado adag meeshaas ay ka jiraan. laga soo sheegay dagaalo qabiileed ay ka socdaan oo runtii qax iyo dhibaato sababay, abaar ay ka jirto, dagaalo oo argagixisay ay ka jiraan. waxaan rabnaa insha allahu tacaala mana ahan markii ugu horeysay, muddo aan hadda wax badan aan laga joogin waxaa la geeyey raashin kaasoo runtii uga soo degay magaalada Boosaaso oo ku tagay tilmaamtayna oo aan dowladda Imaaraadka aan ka codsanay inay halkaas ay ka dejiso. waxaan maalmaha soo socda ama aan iidana aan ka dabageyn doonaa annagoo kulley dabcan fiiri doona xaaladda wax allaale wixii la heli karo, ama ha noqoto hooy, ama ha noqoto dawo, ama ha noqoto raashin. marka aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan ka sugootinayno raashin dhulka ku bixi doono oo runtii mari doono dhul dheer ilaa uu ka gaaro deegaanada Puntland. waxaan kaloo ku dadaali doonaa inaan maalmaha soo socdo aan badda ka galno oo dhinaca baddana aan wax uga dirno. marka aad iyo aadan ugu faraxsanahay soo dhaw xildhibaane, waa ku mahadsantahay runtii wada shaqaynta iyo dadaalka aad ka wadaan oo runtii aad doonaysaan dadkii Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku dhaqnaa ee dhibaatadu haysahay inaad mataqaanaa xogahay aad ka shaqaysaan inay wax gaaraan. hay'adda maalinta masiibooyinku waxay ku dadaali doontaa si allaale si tabarteeda inay ummadda Soomaaliyeed meel kasta dhibaato ku haysata ay gaarto. tanna waxay ka mid tahay runtii dadaaladii aan wada. aad iyo aad u mahadsantahay. xildhibaan Jikaato ayaa dhankiisa hay'adda Sodma uga mahad celiyay gargaarkan oo socdaal dhanka dhulka ugu gaari doona Puntland. maanta waxaan joognaa baqaarka hay'adda maareynta masiibooyinka caasimadda ku yaala. runtii waa kaga mahad celinaynaa maareeyaha oo shaqo fiican qarankana u haya, dadkana ummadda Soomaaliyeedna u haya, inuu maanta noo yeeray uu yiraahdo waxaan rabnaa inaan maanta wareejino raashin loogu talagalay dadka ay saameysay colaadaha iyo abaaraha ka jira deegaanada aanu ku matalno golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee u horeysay Puntland. runtii hay'addu shaqo fiican ay ummadeeda u haysaa, markii koowaadna ma ahan, markii u dambeysana ahaamayso insha Allah soo hadda maareeyo sheegay. raashinkaana waa bilow loogu talagalay inaan gaarsiino 3,000 oo qoys oo dhigjoojina, ka badanna way imaan doonaa ilaa idinkiisa haddii ay maaragtay raashinkan markay gaaraan deegaanka oo aan culays iyo shida aysan ka imaan inaan iyadana mar kale ku dayno. haddii kale ay noqoto raaca labaad inay noqoto mid laga geyn doono la marin doono badda. runtii gudoomiye shaqadaadi maantay waa soo hilaacday, inaad noo yeerto aad tiraahdo warbaahida deegaanka jirta aan mataqaanaa ka jawaabaya. runtii saas waxayna tusaysaa in hay'addu ay deegaanada Soomaaliyeed oo dhan ay kala socoto xaaladooda, ay qiimeyn fiican ku hayso. ilaahay iidankiina waxaan rajaynaynaa culaysyada hadda jira ilaahayna naga dulqaado. runtii muddadii hadda la soo dhaafay guguna waa yaraa, deertuna ama deeyin. ilaahay idinka waxaan rajaynayaa ilaahay gugaan inuu maaragtay guo barwaaqo ka dhigo, guo aaran ka dhigo, haddii kale xaaladdu waa adkaan doontaa. waxaan rajaynayaa ka jawaabid fiican aad samayn doontaan xilligaas. markii laga tago xildhibaan ahaan anaga golaha waxaan ka tirsannahay guddiga arrimaha bulshada. runtii waa kugu bogaadinna ka guddi ahaan shaqada aad u haysaan qaranka iyo sida ugu jawaabaysaan marxaladaha taagan. insha Allah raashinkan uu gaari doonaa si uu dhaqsiyaha badan deegaanada loogu talagalay. insha Allah waan ka rajaynaynaa intaan ka badan in maaragtay deegaanadii gaarsiin doontaan. waa kaaga mahad celinaynaa maareeyo shaqada qaranka u haysid,
guuleysaan ku leenahay insha Allah intaan in ka badan oo wada shaqeyn doona biidhnillaahi kariim. Yunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.